maalintii caalamiga ahayd oo gudniinka gabdhaha oo lagu xusayay sanadkaas ayaan qabanaa dad badan ayaa ka soo qayb galay oo hay'ado badan dad badan oo Afrikaan way yimideen dad kala duwan adiga oo professionals ayaa ka soo qayb galay mowduuca iyo macnaha wuxuu ahaa sanadkan sidee wadajir loogu shaqeyn lahaa macnaha sidee arintan aan dhamaanteen wayna qosaysaa aan iskaga kaashanahayn kabacdi macnaha waxa noo yimid maanta oo barnaamijka nagala qayb galay muxuu ahaayay duq magaalada Amsterdam ayaa lagu qabtay oo iyadana ballanqaadyo badan sameysay oo arintaana in la soo afjaro ay ku tala gashay marka muxuu ahaayay waxyaalaha laga hadlay waxa ugu badnaay hataa ka qaybgalka arrimaha oo macnaha bulshada qolooyinkan wacyigeliyaasha ah oo waliba bulshada ka socda siday arrimahan uga qayb qaadan lahaayeen macnaha arrimahan wax hal ay adkariye ay sameyn karta ma ahan waxa la go'aansaday in meelo badan laga fiiriyo gaar ahaan dadka arrimahan ka dhaqankooda yaqaan ama u dhashay in fikirkoodana la tixgeliyo laakiin waxa moodaa Soomaaliya arintan in aad looga gaabiyay gaar ahaan macnaha muxuu ahaayay way ku mashquulsan yihiin laakiin sidii la rabay macnaha ma aha iyo siyaasadda wali hata sharci annaga lama ansixinin Soomaaliya marka arrimahan waxa fiicnaa lahayd maadaama aan number 1 nahay adduunka in wax laga qabto gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqda macnaha bini'aadanka inay arintan u soo jeesato oo wax lagu qabto wadaadada ay waxay diinteena ka qabto ay sheegaan dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo oo mustaqbalka maadaama ay waalidiinta yihiin intaas macnaha aniga aan tala ahaan u soo jeedi lahay dawladda Soomaaliyeed